hambalyo maanta waxaan la qaybsanayaa iyo farxad walaalkay Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac iyo walaashay Ayaan Bashiir Maxamed oo arooskoodu ka dhici doona hadii Ilaahay idmo oo haayo Abriil 15keeda 2016 hadii Ilaahay raado faniska friendska familyga dhammaan waxaan ka wada codsanaynaa inay nala socdaan 15 Abriil 2016 aad baan ugu faraxsanahay maanta farxadan ila soo daristay hadii Ilaahay raadana dhammaan inta walaalihii ka ugu horeeyaan ka ahay maxay heedana dhammaan inta isteedada wada joogta aan ka wada qayb galayna arooskiisa oo hayaan ku wada kulmi doona hadii Ilaahay raado walaalaha iyaga ama inta faniskiisa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan la qaybsanaynaa farxadda Nimcaan Hilaac iyo Ayaan Bashiir waxaan leenahay bulshadana hambaliyada iyo ducada nala soo garab istaaga walaalkay Nimcaanna aad baan ugu faraxsanahay hambalyo arooskii dhisma ee ubad wiil iyo gabadh laga helo Allah inooga yeelo arooskeena insha Allah ducada ayaan wadaynaa ilaa iyo intaan reerka dibadda u taagayno wabillahi tawfiiq